بسم الله الرحمن الرحيم taariikhdu markay ahayd 12 bishii 2024 abaar 3 saac subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad qaabedkii loo heystay eedeysane Cabdi Cabduqaadir Maxamed 28 jir ah ina caasho macalin Xuseen ku dhashay Baraawe kaasoo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in asagoo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab una qaabilsan qaybta fuulisa dilalka qorsheysan ee dhagarta ah kana howlgasha gobolka Banaadir una dil bareer u geystay marxuumiinta kala ah kow marxuum nabadoon xaaji muuse haaruun aadan iyo marxuum KL Bool nuur xuseen calasow falkaasoo ka dhacay degmada Daynile taariikhdu markay ahayd 5 bishii 2024 waxay maxkamaddu ku xukuntay taariikhdu markay ahayd 15 bishii 2024 dil toogasho ah ahna qisaasta marxuumiinta kala ah kow nabadoon xaaji muuse haaruun aadan iyo marxuum KL Bool nuur xuseen calasow maanta taariikhdu tahay 10 bishii 2026 waxa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa taariikhdu markay ahayd 18 bishii 2024 abaar 3 saac subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad qaabedkii loo heystay eedeysane Farxaan Xamuud Cabdinuur Aadan afgarishidiisu ay tahay Xasan 22 sano jir ah ina Awliya Aadan Xasan ku dhashay Qansax Dheere kaasoo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in asagoo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab una qaabilsan qaybta fuulisa dilalka qorsheysan iyo sahminta ah una dil bareer u geystay marxuumiinta kala ah kow marxuum X xidigle asluubta Ali Cabdullaahi Liibaan oo ku dilay ceelasha biyaha taariikhdu markay ahayd 18 bishii 2024 labo marxuum X dable xooga Xasan Cabduqaadir Ibraahim oo ku dilay Garas Baaley taariikhdu markay ahayd 28 bishii 2024 waxayna maxkamaddu ku xukuntay taariikhdu markay ahayd 30 bishii 2024 dil toogasho ah ahna qisaasta marxuumiinta kala ah kow X xidigle ciidanka asluubta Cabdi Cabdullaahi Liibaan iyo marxuum X dable xooga Xasan Cabduqaadir Ibraahim maanta taariikhdu tahay 10 bishii 2026 waxa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa wabillahi tawfiiq sooma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudeed waa hal martaaba u kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay altaabasho oo kaliya